الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي 8 شناد كميدا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. waxaan ku dhex jirnay baabu min ashirki an yastagiitha bigayri illaahi aw yadcuwa gayrahu. shirkiga waxaa ka mid a buu yihi sheekh raximahullahu tacaala in ilaahay keyrkii gargaar laga dalbo iyo ilaahay keyrkii in la baryo. adiladii marka ku soo aroortay baabka uu sheekhu keenay ayaan ku dhex jirnay. wuxuu cashirka noo maray aayadda uu sheekhu leeyahay aayadda 5 ah. إلهي سبحانه وتعالى وحولي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن وكما يجيب المضطر مثل الذي دباتك لأجيبه إذا دعاه قرته ويرته دواغده ويكشف السوء حمانتنا كفيده وكما كاس الله سبحانه وتعالى واي أمتى مركوة منقطعة ويان بمعنى وحي كدقنت بل yay ka dhigan tahay maadaama marka Allah subhanahu wa ta'ala uu yahay midka culays markuu yimaado adoomadiisa ajiibayo culayska yimaadana ka dulqaadayo de asaga cibaadada mudan gargaar in la weydiisto asaga mudan in la baryo asaga mudan ee cid kale aan la siinin weeyaan aayadu wuxuu sheekh u keenay waay روى الطبراني وحوري بإسناده إسناد كيس الطبراني وحوري كتاب كيس معجم كايو كوريا أنه شأني كان وحاء هذه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقت كيسي منافقة ومنافقين النبي يا صحابي سدبي سكمدها كاسو يؤذي المؤمنين مؤمنين تدبه فقال بعضهم قاركوضا وحيدهن صحابتي قوموا نستاجية بناء أننا نستاجية ونكينو نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولك الله أن قرقار أن كوي جسنا من هذا المنافق مت كان منافقا إنه نقبته أن نبي كقعون وأن كقرقار سنة. فقال النبي وحيد صلى الله عليه وسلم مرك الله تقي إنه لا يستغاث به أنه قرقار لي ما ضلبه وإنما يستغاث بالله قرقار كإلهي بالغ ضلبه. حديث كان سنة كيسة وضعف باكوشر وعريوضو أي كالله ابن اللهيعة أي سنة كيسة لغو شيغا انكسو معناها حريكة الهيثمي في مجمع الزوائد مركو كوكاني ويري رجاشي سوى صحيح غير ابن اللهيعة وهو حسن الحديث أصلا حديث كيسة وحسن بكو شيغي لكن علا كلانا والغو شيغا حديثكو سادراد المركز سنة هان ما أنسحن لكن wuxuu tilmaamayo waa waxay un adilada kala ay ka hadashay oo istiqaasadu inay tahay cibaado inay tahay ilaahay qeyrkii in loo leexiyay ay sabanaaneen. waxa kale oo muhiim inaad ogaataan xadiidka hadda wuxuu ka hadlayo istiqaasadu waxa uu soo qaybinay 2 qaybood. cid nool in gargaar la weydiisto waxay kari kartana la weydiisto isla markaana xaadir ay tahay ayadu waa iska banaaneed. tan hadda taasay kamid tahay ayadoo sidaa tahay buu nabigu cali salaam diiday sida xadiidku tilmaamay. maxay nabigu waa la joogay cali salaam waa inuu u tageen wuuna awoodaa inuu ninkan ka qabto ayadoo sidaa tahay si marka aadaabta iyo cibaadada siday ku fiican tahay uu nabigu cali salaam si uu ogeysiyo ayuu baab furmay oo nin walba uu ka soo galana aad u noqonin ayuu ka diiday. laakiin tawaabatii banaaneed oo shuruudii ay ku banaaneedo dhan laga helay ونبي نولي عليه السلام هذا قادر ويا ينكا وحقق بنكره هذا أو معناها أو حاضر ويا ولا جوجو واي فيه مسائل بشيخ وير مركب بابك وحقصر مسائل. الأولى مسألة كبعد حوي أن عطف الدعاء دعاء أو لغض عطفه أو لغض بحره على استغاثة جرجار ويجسي لغض بحره من عطف العام على الخاص شيء عام أوجود أو لغض بحري أو لغو حريري خاص أيو كميدي هاي بمعنى وحوي دعوده أيا كعامسان استغاثته
macduufi macduuf calayhana laskaga dhigiyo macduufkii waxaa laga dhigi ducadii oo caamkeeda guud macduuf calayhigina waxaa laga dhigi istiqaasadii marka mana isdiidayso wax culaysana ma laha athaaniyatu masalada labaad waxa uu sheekhu yidhi tafsiiru qowlihi tacaala ilaahay hadalkiisa oo la fasiro uu allo u yidhi walaa tadcu ha u yeerin min duuni illaahi alla ka soo koow ama maca allaahi ama hayr allahi ilaah hayrkii maa laa yanfacuka waxaan waxba ku taraynin haddii aad macnaha adeecdan aan waxba ku taraynin walaa yaduruka aan dhibna kuu geysan karin haddaad caasiso aayadda tafsiirkeeda iyo baabka laga faa'idaysanaa buu sheekhu yidhi athaalithatu masalada saddexaad waxaa weeye ana haadaa wa shirku larkaba ana haadaa kan oo ah istiqaasada ilahay hayrkii in loo yeerto ama ducada ah ilahay hayrkii in loo dhawaaqdo ah ama gargaar markaa ha noqdo ama duco kale ha noqotee huwa ashirku alakbar waa shirkiga weynaay buu sheekhu yidhi maxaa yeelay shay kastoo cibaado ah haddii ilaahay loo leexiyo waxaan soo ogaan inuu yahay tawxiidun wa ikhlaas inuu yahay ilahay hayrka haddii loo leexiyona shirkun wa kufrun inuu yahay waay istiqaasadana marka iyo ducadana cibaadaday ka mid yahay adiladoodana waa soo marnay alraabicatu masalada afaraad waxaa uu sheekhu yidhi ana aslaxa annaasi dadka kan ugu wanaagga badan ugu wanaagsan low facalahu shirkiga haddii uu sameeyo irdaa'an raalligelin uu u sameeyo darteed ligayrihi cid kale uu ku raalligelinayo saara wuxuu ahaanaya qofkaas min adaalimiina inta daalimiinta ee mushrikiinta ayuu ka mid noqonaya dadka kan ugu wanaagga badan ee ilaahay ugu dhow subxaana wa tacaala haddii shirki uu sameeyo isagoo cid kale ku raalligelinayo waxaa weeyaan wuxuu ka mid noqonaya mushrikiinta ayuu ka mid noqonaya intee laga qaadanaya warkaas waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salatu salaam khitaabka lagula hadlay waxaa la yidhi walaa tadcu min duuni illahi maa laa yanfacuka walaa yaduruka fain facalta fainaka idan min aldaalimiin marka nebigu ma samaynaya calayhi salatu salaam arrintaas in ilaahay baa ka ilaali laakiin waxaa laga wadaa hadduu samayn lahay taa marka waxay kutusinaysaa khaduurada iyo khatarta uu leeyahay shirkigu sida ambiyo badanba ilahay markuu ka soo sheekeeyey uu yidhi walow ashrakuu laxabida canhum maa kaanuu yacmaluun hadday shirki samayn lahaayeen wax alla wixii camal samayn o dhan waa burburi lahay waay marka qofkaanaa wanaagsan iyo qofkan waa ahlu khayr iyo midna waxba ma yaqaana shirki haddaad ku dhacdo shirki unbaad ku dhacday khalaas alkhaamisatu masalada shanaad waxaa weeye tafsiiru alaayati alatii bacdaha aayaddan ka dambaysay tafsiirkeeda way ayaan baab ka faa'idaysanin aayadda maxay ahayd wa in yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu taas way aayaddaas oo macnaheedana marka ay noqonayso iyo ujeeddada hadda sheekhu ka rabo haddii ay cid culays kaa faydi karin alla mooyaane subxana wa tacaala cid kale haddayse kaa faydi karin wajaba an takuuna alcibaadatu lahu waxdahu walistiqaasatu bihi waxdahu haddii xaaladda sidaa tahay wixii culays kugu yimaado ilaahay muu cid kale subxaana wa tacala oo kaa faydi karto oo kaa qaadi karta aysa jirin haddee waxaa waajiba markaa oo caqliga saliimkana hataa uu ogolanayo cibaadadani in marka keligii la siiyo gargaarka weydiisiga in keligii la siiyo taas weeye markuu mid sheekhu ka daliishanayo asaadisatu mas'alada lixaad oon ka faa'iidaysanayn waxaa weeye kownu daalika arrinka ahaashidiisa ee shirkiga laa yanfacu fi dunya adduunyadan aad waxba taraynin maca kowni kufran isagoo weliba ay jirto inuu gaalnimo yahay waay maxaa yeele ilaahay aayaddiisa laga qaadanayo ilahay yuri wa in yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu marka hadduu ilaahay dhib kugu taabto falaa kaashifa lahu wax kaa faydi kara maa ilaa huwa isaga mooyaane marka adigoo oo cid kale haddaad u cararto ya ood wax weydiisato amaad gaargaar ka dalabtana waxba kuuma qaban karto marka adigoo shirki ku dhaca shirki in waxba kuuma qabanin maca annaka macnaha kafarta billahi subxana wa tacaala oo waqacta fi kufrin taas buu ka wadaa sheekh marka asaabicatu mas'alada toddobaad waxaa weeye tafsiiru aayati athaalithati aayadda saddexaad tafsiirkeediina baabka fahaysa aayadda saddexaad maxay ahayd fabtaquu cinda allahi risqa ilahay agtiisa risqiga ka raadiyey subxaana wa tacaala waaya marka irsaaqda ibiilka meesha laga doonaayo oo loo tala saaranayo alla subxaana wa tacaala weeyaan wahaakada athaaminatu masalada sideedaad ka fahaysan wuxuu yihi sheekhu ana dalaba risqi irsaaqda dalab raadinteeda laa yanbaqii ma haboono ila min allahi alle xaggii in looga dalbo mooyaane
كما أن الجنة سيدة جنة كما سيدي بو شيخ رحمه الله تعالى أن الجنة جنة لا تطلب أن لو قد بين لو عدسنين إلا منه من الله إله مويانه إرزاق دو إلهي بابحي سبحانه وتعالى جنة إلهي بابحي سبحانه وتعالى مركز الجنة عد هذا عد كلك ضلبة يسمى جرته كوفق هذه وغلادة وأهل غبورة وجنة عبد القادر بانوهايو أما الشيخ أويس بانوهايو أما الشيخ فلان كلا نوهايو لها واجران كوا هذا كهالمين لكن أمضوا بدن كادو إقلالات كل عضو لما أنت الجنة وحيك ضلبين إلهي سبحانه وتعالى هذه سيدة تاي رزاقنا وإن إلهي سبحانه وتعالى أدايان حيالي حلقة قادنا يا إلهي مركو يري واعبدوه واشكروا له إلهي ترجعون واعبدوه ألا عابد بالي واشكروا له أسجنا أمهد عليه وكشكريه إلهي ترجعون حقي سلين علينا يا حيالي عبادتنا وسبب لدخول الجنة صماه أسباب جنة لو قالوا حكمي عبادة أي كمية marka maadaama cibaadada ilaahay loo gooniyeela rzaaqdan waa in ilaahay loo gooniyeelo subhanahu wa ta'ala xaqiisa laga raadsho التاسعة مسألة سجالات تفسير آية الرابعة آية أفراد تفسير كذا وأبو شيخ رحمه الله آية أفراد نحوي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون آية سويا العاشرة مسألة التضبات التبنات وكفايزين بابك حوي أنه شاني لا أضل عدك بعدين ما بدل مجرته ممن دول حقي دعاه ويرتي ودواقدي غير الله إله عدي أنهن قفك بعد السنملة عليك أبوري قاب كان كودقي أدقو وحويا هذا ربناك مركا أصاب بحدي أن تبر لهن كسو برباري قرآن جد معناها حتى يكعوني كرتو بعلا ضرنا يكعوني كران انت نسوي دي إن محلي رها انت معناها كسو قارسي مرو عفوا انت كسو قارسي وهدنا مد عقلي كو يالي oo nooc kasta ku sameey in aad maanto waxa weeyaan aad maxaa la yiraahdaa aad ka beerto oo ka leexato oo cid kale u dhawaaqato hadee wax ka baadinimo badan oo dunida ku nool ma jiraan saas weeyaan waxaana laga qaatay waman adallu mimman yad'u min duni illahi ya ka baadinimo badan billahi ka cabir subhanahu wa ta'ala cid ka baadinimo macnaha istifhaamka isu'aashana waa nafyi halkan nafyi baa laga wadaa الحادية عشرة مسألة كوي تمناد وحوي بابك وانك فايسنين أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه وهي أنه أن المدعو وي مثل لو ييرن ولا دواقع هذا غافل ومثل المانسن عن دعاء الداعي مثل دواقنا يريد يسوه المانسن يهبا لا يدري عنه من قرناه وحا مشكلة عدة أدو دواقنا يسو هذا وربا كاما يسو كاما ورقبته هذا Soomaalidu kuwa badan oo kamid ah waxay u dhawaaqdaan Sheekh Abdul Qaadir Jilani ma yaqaano xilligiisana Soomaali ma joogin haday jirtina haday dhulkooda ay ku noolaa isagana Baghdad buu ku aasan yahay Iraq buu jooga waxba kala ma socdo isku luuqana ma baha ayagu waxay ku hadlaan Soomaali asna wuxuu ku hadlay Carabi buu waay marka inay jiraan buu war uma hayo waxbana kala ma socdo marka waa hilmaansiin inta laga qaati aayad ilaahay muxuu wahum an ducaahim ghaafilun yeeridooda ay u yeerayeen baba ghaafilun maba ka warqabaanba wala gart الثامنة عشرة مسألة الله بالطبران كفايسين بابك حوي أن تلك الدعوة يريداس قوى هلمانسان يأل قبور كي وحلامين لو يرايو سبب والسبب وحساب أطهي لبغض المدعوي كان لا دواقع إنه وعروضه للداعي متك دواقنا وعروضه إيواد عداوتي له إنه عدوتي نما وأقاضبه وعكولي يريد الله دواقع وحاويا متك دواقنا متك الله دواقع وحي معناها ay sabab ugu noqonayso inuu xanaaqaba kii u yeeray cadawtinimo iyo dagaalna uu qaado waana sax sidoo ilaahay sheegay subhanahu wuxuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala wayda hushira an-nasu dadka hadii la soo shiriyo oo ma banka qiyaam la isku keeno kaanu waxay u ahaanay lahum ayaga cadaan kuwii ay u yeerin jireen macadu bay u noqonayaan
وكانوا بعبادتهم كافرين وكا وين مركا عدو كانوا لهم أعداء أذيك كو يريد بل كانوا يعبدون الجن وأكثرهم بهم مؤمنون بيدي دونا مركو إلهي ملائكتك هذا سبحانه وتعالى بدن كود الجن إبلاء ويرناه مركا شيخ عبد القادر هدو هدي اللي ويديو وحوبا دي أنا وح صومالي اللي رمى باقونين محوانا كلمات سعونين luuqadoodana maba naqaano luuqadoodana maba aqaano jin bay u yeeranayaan buu dhihi waa iska fudud hawsha waana sabab inuu u caroodo keenayo wey yeeritaanka ay u yeeranayaan marka kii aad u dhawaaqanaysay haddaadba wixii kugu xanaaqi lahay ood cadowtinimo kugu qaadi lahay adigu aad ka shaqaynaysa ka waran isuna haysata adigana inaad toosan tahay nasiib darri weeye الثالث عشر مسألة 16 كفايسين بابك وحوي تسمية تلك الدعوة دعوة تاس يريد تا إن لغو مقعابي عبادة لغو مقعابي للمدعوي كان لو يرايو أي عبادة أطه عدة أدو دواقنيسة حداي الله تهينا سبحانه وتعالى دواقاد يريد هذه الدعوة هذه وحين نغنيسة عبادة إلهي أدو عباديستي حداي عد كلا أدو يريدتنا وأهل القبور كأدو يريدت إما وحي لمدنا أي أدو عباديستي عبادة أي أدو قبور تأو عباديستي وعبد القادر كأدو عباديستي ayaad noqonaysaa weeyaan maxay ducadu waa cibaado hadda cidii la siiyo bay cibaado u tahay marka hadii alla la siino waa cibaado alla la siiyo alla looga dhawaana hadii cid kale la siiyano cidaas kale hadii looga cibaadaystay taa horta waa in la fahmo weey intee laga qaadanaa isla aayada laga qaadanaa ilaahay muxuu yiri subhanahu wa ta'ala wa kaanu bi'ibadatihim kaafiriin cibaadada hadda halkan lagu soo sheegay maxay ahayd salaad ay u tukanayeen miyaa la dhahay maya oo u soomayeen miyaa la dhahay maya حيث عبادة يسمينين وإنه يقول واقدان وين عبادة إله يكون مع مركز سبحانه وتعالى أدلك لو فرب ظن وصمر وين عبادة اسمك أيقول له سمينين أو رواق دعاء ويكون قالوا بيان بإله سبحانه وتعالى وين 14 مسألة 8 أفراد كيف يسمى بابك حوالي كفر المدعو كان الله رواقنا ولو يراي إنه كفرنا يدين دونه بتلك العبادة عبادة التي ودين دونه كافرين سو إلهي كما ختم من عيد وكانوا بعبادتهم كافرين وكو كفرنا بالآير مركا كوباد دواقد أدوك دواقنا سو يرني سوا وحي السبب أنه قنيسا إنه كو حناقو وعقدت كو قاضو وكل الدقاء الله علقو كو قاضو ومد الله هذا haddii aad u dhawaaqato waad u cibaadaysatay ogow aniga salaad uma tukan anigu uma soomin ma jirto qayb cibaadada kamid aad u samaysay marka adigu kaas aad u cibaadaysataa waa mid saddexaad cibaadadaada hadana ka aqbali maayo waaba kugu kufrina waa kugu diida waa kugu soo tuuray marka mar walba adigu baa khasaaro ku sugan الخامسة عشرة مسألة شني طبعا ولقى فايسنا باب كحول شيخو هي عبادة سبب كونه أهاشدي سمعنا إنه أهاضه أي سبب أنه أضل الناس ذاتك كان أقول بعد نمضى بضا إن هذا إله غيرك وعبادة يسطه وعبادة إله خاص أرها سبحانه وتعالى أتسيصه عدكلا بابا السبب دنود أنتو كنا لن متك أقول بعد نمضى بضا أتكون قتبوي عبادة إله غيرك سيصه واحد دنود يلا دم واحد عدو أقول بعد نمضى بضا إن تكون قتها سبب كينا واتس معي العدكلا دي أيام إله غير كيس إن العبادة تقول لي حسي وسبب كأتكون نقطي أضل الناس ذلك كان هو بعد ما ضبط ساس باورك لك وضع 16 مسألة طبعا اللي حاد حاول تفسير الآية الخامسة آية دي شنات تفسير كذا أيضا باب كنا كفايس آية دي هاد أما يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء إلى آخر الآية 17 مسألة شنات طبعا كفايسين وحوي الأمر العجيب أرن كوي ومحوي وهو أرن كاسن وحوي أرن كاللياب كله إقرار عبدة الأوثان هو أوثان تي أصنام تي قبورها أولياء عابده وعبادة السي وآيه قرتان كوض أي قريان أنه لا يجيب المضر متك دباتيسان إن أجيبين إلا الله إله مويان ولأجل هذا كادرتيز يدعونه الله يرنيان في الشدائد مركي حالة علص قبصدان شدائد علص تحديدا مخلصين له الدين أيقوا الله عملك أبر احترى سبحانه وتعالى سلام مهم وي وحال يابله وحان هذا أركيسو
oo u dhawaaqanayaan qabuuraha iyo maxaa la yiraahdaa iyo asnaamta iyo waxaan dhan ay u dhawaaqanayaan arkaysid markay xaaladda waxay qirsan yihiin markay xaaladda cuslaato ilaahay moogi cid kale oo ajiibi karto oo xaaladda culus ka faydi karto inaysan jirin saa daraadeed markay xaaladda ku cuslaato ilaahay bay baryayaan subxaanahu wa tacaala hakada laakiin kuwa hadda joogo arrintaas ka duwan baa jiro kuwa hadda joogo qaybo ka mid markii ay xaalad culus ku timaado waxaa weeyaan markaasayba u yeerinayaan ilaahay keyrkiisa markaasay cabdiqaadir u dhawaaqayaan meesha ilaahay u dhawaaqayaan laakiin kuwii hore sidoo quraanka ka markaati kacay in badan oo kamid ah markay xaaladda cuslaato ilaahay kaliya bay cibaadada u gooniyay jireen fa idaa rakabu fil fulki da'u allaha mukhlisiina lahu ad-din wato ilaahay subhanahu badaha markay marayaan hirka iyo badda inay laqa ay ku qarqoobay biyaha ku maashuubaan ku halaagsamaan markay ka baqayaan ilaahay kaliya fa idaa najaa ma'an markii banaanka loo saaran idahum yushrikuun ilaahay baa xallu wadaajin jiray subhanahu wa ta'ala laakiin hadda waxaa la arkay kuwa xilliyadan dama nool oo markay xaaladda cuslaataba si fiican qabuuraha u sii aado oo qubuuraha iyo dadka ka maqan aad ugu sii dhagaa la arkay al-amru al-ajib arrinka weyn waa yiri oo ajiibka la yaab kale wahuwa iqraaru al-abadati al-awthan awthanti asnaamta iyo wixii lamid ah kuwa u dhawaaqdo annahu la yujibu al-mudarra inay qirsihin way qirayaan annahu ay ka marqaati kacayaan annahu la yujibu al-mudarra midka dhibaataysan inaan ajiibi kan illa Allah ilayma wali ajli hada كادرتي سيدعونه أي الله أدى وقنا في الشدائد حالها على صدحضاضه مخلصين أيوة أبرحترايو له الله سبحانه الدين أي العمل عملك 18 مسألة سديد الطوانات ومبابك وضم من كفى يسنين وحول الشيخ وحوي حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيقوا إلى لنتسوا إلى لنا حمى التوحيد سودين تيسا إيو سيره إيو صرصر كيس إيو والتأدب مع الله إلهي سبحانه وتعالى أو لقى أذب صدا واي نبي عليه الصلاة والسلام سيدو توحيدكو إلى لنا بالفيري محال لقى قادنا هذا كنت لقى أنه لا يستغاث بي إنما يستغاث إلى الله إنما يستغاث بالله سبحانه الحديث نبي عليه الصلاة والسلام أنه قرقار لي مو ويجسته واحد قرقار لو ويجسته وحويا الله سبحانه وتعالى إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله بي أيضا بنانتهاي oo sharaacada ay ku sugan tahay oo kitaab iyo sunnada ay ku soo aroortay inay arinta u banaanta nabiga kaleey salaam maxay maadaama xay yahay uu nool yahay xaadir uu yahay oo ragga waxa weydiisana ay macnaha la joogan xaggana qaadir uu yahay ninka loogu soo dacwado wax ka qaban karo ba haddana si uu tawxiidku u ilaaliyo oo abwaabta hadhowtay dad damba ay ku qaldami karaan oo albaabkaaba u xiro ayuu nabigu kaleey salaam allana uu eedabsado ayuu sida u sameeyay waay حتى الفاظ نفتيض الاستعمالها فمرك غاركود لقى أدب صدا أساس ويه 18 وحول حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم نبي قال دورتي إلى لنتس إلى لنا حمى التوحيدي توحيدك معنا سودين تيس توحيدك السيرة ولا يهاي سودين بولا يهاي ويهاي حيداب بولا يهاي صرصر بولا يهاي وإلا إلى عليوي هذا القصة يفعل قصة أو وحكو كيني كرا أو ددق أي كو قلدمي كران إن لحروا بابك الله يقانوا سدوا ذرايع سدوا ذرايع ساد درادة دبا وحيالا اسكبنا أنا ممرك غاركوت سي الباب كان الله حرها فرح لك قادة سيدو النبي وحد السميع عليه السلام والتأدب مع الله إلهي أو لك أدب صدق باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم إلى آخر الآية انتهى إن شاء الله تعالى درسي جيني ما تنوجي هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.